walaalahay hadalkayga waan gabagabaynay marka laga hadlo waxyaabahan rumaysanayna ilaahay wuxuu noo sameeyey repair waa tawxiid marka laga hadlo akhlaaqiyaadka 5,000 aayadood buu ilaahay kaga warramay qur-aanko repair baa laynoo sameeyey marka laga hadlo repair physique meelaan eegano oon kulaallo oon hadhiyo habeen kaga warhayno ku noqnoqono waxaa laynoo sameeyey masaajid iyo meelaha ilaahay lagu caabudo jalla wacalaa waxaan jecelahay aniga hadalkayga intaanan ku daayo inaan iska sheegaysano wax isweydiino markaa siyaasad waan sheego hadalkayga waan qadimay aniga waxaan ahay diinta ilaahay baan sheegaa siyaasad hoosana inaan ka warramo ma jecli oon galo aniga dhaqankayga waa sida aniyo labadii sheekha saaxiibada ahayba ma rabno wax hoose inaan u dhaadhacno wala walaal baan nahay reer Djibouti baan nahay siyaasadana waa aniga sheego wala u kala tagsiyay in lagu kala tagsanaadina waa sax cid walba waxay doonaysaa waxa weeye wadankeena si loo barwaaqoobo oo loo hagaago marka waxa danteena guuda aan ka wada hadalno wax ku saabsan su'aalo iska janaqal hadii jirto ka jawaabi karana waan ka jawaabayaa mar labaad waad maadsantihiin waad karaamaysan waad maamuseen waad sharafteen jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ شيخ إلهي سبحانه وتعالى هبركيو كلمتها قلبي نيو لله إنما كل عين إلهي سبحانه وتعالى إننا هينا وانفع ويسجل في ميزان حسناته الله وغيره runtii sida uu sheekhu sheegay mar raba inaan ku noqdo ama aan ka daba tago laakiin dabcan uu idiin caddeeyey mawduuca ku saabsan siyaasadda iyo Djibouti mowqifka culimada iyo aragtidooda maalin iyo sanad cusub sanadka cusub ee inoo bilowday insha Allah taala maxaa rabnaa nolosheena inaan ku bilowno sidee sanadkii inaga tagay shalay dhamaaday wixii aan gaari weynay ama aan hirgelin kari weynay sidee sanadkan cusub ee maanta bilowday aan alifka ka bilaabayno aan u hirgelin karnaa insha Allah taala anagoo markaa ka dhaqaaqayna maalan anagoo ka dhaqaaqayna saddexda repair ama reference ee sheekhu inoo sheegay khayr Allah siiye waa midda u horeysa sideen u wanaajiyaa u fiicneeyaa u horumariyaa ودائمية قيبتا آمنادة ربي سبحانه وتعالى عقلي إيمانك كسابسا توحيد كان ربي سبحانه وتعالى علاقات الخمسة حديد داس حديد كوه الرئيه حديد كان ربي سبحانه وتعالى أنيجي إيو ربي جيجي سبحانه وتعالى وسؤال قلت أن جعل الله قف كستين تويس ويديو قولي إنتو كلن نغضو إنو سميستو طريق وكوير قليل لها الرماس قدر خلبات وشيخ تلمامي وارنتي أخلاقياتك كبرتموها بكاركترك إيو دبيعتها هي أخلاقياتك عصبة إسبدلية السعودية إنك قضي يسدو شيخ شاغل إنك يميني إننا هنا سيدا يرى فضوضا مقادرين إن الميزان كسارنا نرهن طبعا دقنك إسلام كوي بري دين كنيلة هي يتلقلي inaan ku dhaqmo sideen ugu dhaqmaa hadda marka adigu waxaad samaysaa muraayad hor joogso isfiiri adigu dabeecadaha iyo dhaqamadaada runtii fiiri isku day inaad taa rabbi subxaanahu wa tacaala kuugu talagalay inaad ku noolaato in aad haddaanad hayninna aad create garayso oo aad samayso dalufto haddii aad haysana inaad hore u mariso waxaanad ka bilowdaa meelaha aad ku wanaagsantayd ku fiican tahay inaad sii xoojiso meelaha yareed ku liidatana inaad boorka ka jafto oo soo toosiso qodobka ugu dambeeyay ahaa qiblada iyo meesha laynoo sameeyey inaan u jeesano oon haddaba meel kasta aan ku haysano ilaahayna subxaanahu wa tacaala inoogu tilmaamay dhulka oo dhan inuu maaragtay inoo yahay musalla iyo meel lagu cibaadaysto bal taana inaan maaragtay insha allahu tacaala sidii aan u horumari lahayn walaaluhu waraaqay qaybinayaan insha allahu tacaala haddii ay jiraan تعليق أما السؤال إن شاء الله تعالى وقتي كوبانا يان هيسرنا إن شاء الله إلى هاف أن اور وانا هيسرنا وقتي اللي نوغو تلقى لي هدو لي لهدو أدبان إذن كما هدينا يا أني وقفها الله يرونتي مقعاوة له
guddigii ahlu khayrka ahaa ee noo soo qabangaabiyey kulankan barakaysanee aadka u qurux badan runtii si aad uga soo ajiibteenna ilaahay idin barakeeyo safarkaad soo gasheenna runtii waa bishaaro weyn khayr baad usoo kacdeen ilaahay subxaanahu watacaala sanadkaa cusub khayr haynoogu bilaabo waan sugayaa insha allah haddii uu jiro qof maaragtay soo kici karo oo halka hore intuu yimaado microfoonka qabsan karana aad bay u fiicnaan lahayd in la soo joogsado xagga hore oo microfoonka la qabsado waraqaadii lagu soo qorayana iyadana waa la yeeli karaa insha allahu tacaala baaraka allahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمرك ورئيس الشيخ عبد الرحمن بالخالد. هذا روتر نيشة مال قارو يجي على عليك. وايو شيخ تفسير كان كبرت يعني هو دوري تمنجرة. مسكين في كرتون صلاة الصبح. مركز سؤال شان مشوق عيو وديني وسؤال مركز يعني سويديو. وحال هذا ذكر لي شيء شمينمو. شمينمو قاعد شيء. وقفك قال أو كريات. بسقف مسلم أو ليجا يسقي مسلم شيئا يهود ورته وchoice قف قود دارته وشوا مركو هذا مجتمع مسلم صورته غير مسلم صورته سكرته لا بس هو قاعد مرة بعد عكستين سؤال سويديش وحنا مشينا هم ربع أو ما مشينا مصيوته مش غيركم ما نقول كسيوته مركو شيء موجا أسد النبي إبراهيم سؤاله يسوي دينه آيات كان جرت إلهي سبحانه وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين مركا إن ما يدعي ساعة إن هذا هو مسلم أو ده مسلم شيئا لكن حدنا عدود شمل موقع يوكله إن هذا يعني سنبي من الموقنين. السلام عليكم. جزاك الله خير. أدعو الله استعمل الله حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن عبد الله ورنتي معناه هذا الكلام مركا معها إنه مسلمين بأنها هذا إلهي عندهم دونه معناه يسامحها إلهي وان ربنا مؤمنين بأنها معناه واحد نجد إننا نستاجين رمين تان إلهي رمين إننا نتكينه معناه هذا الكلام واسدا إلهي وقل انظروا ماذا في السماوات والأرض بإلهين وحتى هذا النبي الله عرك يقولك واحد كجرا وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون بالله آياتك وحمد تران دلان إلهي رمين بالله وحن كوذا أنه مركا إتاب كاور النبي الله إبراهيم وصور دفنه إلهي دوار رمين ورمسنه لكن رمين توايان بين يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله بالله إلهي بعد رمسان مر لبعد إلهي رمين معناه إيمانك جديدي وين marka inaad abuurka ilaahay u fiirsato tiraahdo ilaahay waa keligii oo wuxuu keligii ku noqday waa sidano macnaheedu waan adkaynaan ka wadaaye imika ilaahay aan doono oo iimaankeena waxaan ilaahay aan rumayna hadda aan ku noqono kulay macnaheedu saamaha nabiyullaahi ibraahim de ilaahay wa qaala ibraahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta qaala awalam tu'min qaala bala walakin yatma'inna qalbi nabiyullaahi ibraahim baa ilaahay ku yiri ilaahay tus sidaad wax soo noolaysaa markaa buu ilaahay loo miyaanad rumaynin markaa rabbi waan ku rumeeyaa laakiin liyatma'inna qalbigaygu inuu xasilaan doonayaa buu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markaa qalbigaynu inuu xasilaan rabnaa ilaahay waan rumaynay waan ogaanay inuu keligii yahay laakiin cilmigii iyo fikirkii iyo waxaan wadaynaa arrimahaas ilaahay iimaankeenu ka naaxayo ka burraanay macnaheedu sidaa weeyaan cabdillahi jazaaka allah khayr. su-aalo dhowr ay halkan walaaluhu soo direen khayr allah siiyo waxaad moodaa laakiin su-aaluhu inay yacna dhowr mawduuc oo kala duwan ay yihiin waan jeclaan lahaa runtii maraajicdaa sheekhu ka hadlay iyo qofku meesha u laamayay iyo waxa laga rabo inay ku ekaato insha allah su-aalaha kale soo socda haddii uu eeba idmo su-aashii u horreysay ay soo gaadhay sheekh khayr badan allah ku siiyo su-aashaydu waxay tahay halkey maraysaa dacwadii diinta ee dalkii jabuuti. بسم الله الرحمن الرحيم سيدي أنا شيء إنك واحد سكوب برنامج دين تإسلام كنا فافينه وأوحي سكوب كان يو ده اسمه قرني
ودعي كرتا ولا لا قار قبلنا سنقانو المركو هرب سنقاني سيدا فاضمو كلا وسنقاني إلى آخر سيو يا محمود وكليو مركاتنا سنقاني وين جينا سي تانا إسلامي الدين بكذا لكن دتك أنت بدل ما حسبرنا مركان إسلامي الدين كهذا أو الدين بس كو كاير كنتو رجع وتي الدين بس كاير برتي وأنت بدل ما شيء مركا جيبوتي هذا الدولة في عينها هذا واحد دين بدل ما خش على مجرى ده حرقوف باجرتوا تكون وقتين ولا نبع عليهم وبهذا مركا هذا الدين تبغى حقا حرقوف تاسع واحد نبتي أو حقا حرقوف تاجرته أي هذا الدين تبغى واحد نبتي هنا كم حنا راجع الله إن شاء الله تعالى تذكر مسلمين دين تودي والله يستاهل لكن هو صدع باجر كله حق دنيرته أخلاق دي دنيرته تبان كاس عالم كحكومة ما أنت إنترنت كاسو إنترنت كاسنا واحد كاستو فرح إنه وكجرا واحد كاستو قروح بدل إنه وكجرا لبلا بقولي الدنيا واحد كاستو في عنا ولا جهلا واحد كاستو حنا ولا جهلا مركا هو صداع حق دنيرته يبقى وكجرا dadkeedu fi cayn muslimiin bay weligood baahayeen muslimiin bay weligood noqonaya marka hadda de bulshadii waxaan u sheegaynay ama masaajida ama meel fagaaro waaweyn u sheegaynay hadda ma jirto waxoogaa waxay dhibantahay marka insha Allah xilibada ay ka baxdo waa rajeynaa insha Allah xagga gabdhaha gabadha gacanta tigadaal hiil soo dhow الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد runtii waxaan usoo istaagay waxa weeyaan ugu horeyn inaan uga mahad celiyo walaalkeen cabdiraxmaan barkad good ilaahay khayr ha siiyo anigoo hadalkiisii ku halqabsanaya waxaan isweydiinaynaa 5,000 ee aayadood ee akhlaaqda iyo quruxda iyo sabirka iyo madaragtay dulqaadka iyo soo dhaweynta iyo naxariista iyo wada joogga ka hadlaya inaan dayacno oo 500 aayadood أحكامك كان الله على يسكن مشكورية وعمرتي محاكيني وحيكون موقتها وضدقنك يو سيد اللون وليه خاصة أنا أود سارية لبدا قف إسقباء إسلام لبدا قف وحا إسكو دري ريرها بربرية وضيع 500 آيات ما بركتي أخلاق ذاك الله أنا سأل سليه أنا نسأله وأيو حضرك يساء ولماذا إلا هو ريريه maaragtay fiqigii iyo xukunkii iyo su'aalo caynkaas laakiin marnaba aan la weydiin waxyaalaha uu ku badbaadi lahaa reerkood marka walaalka cabdiraxmaan waxaan weydiinayaa idinkuna mar walba marka loo timaadiin looga faa'iideynaya oo aan fahmayna xataa qaabka culimadu ay noola hadasho runtii wayna gashaa oo waan fahmaynaa waxa weeyaan waxay keensanaysaa inuu qofku bilaadanku maskaxdiisa uu ka shaqaysiiyo uu isweydiiyo runtii waa waxa naftaada taabanaya wuxuu sheekhu noo sheegay la khayr siiye marka daa'iradii kama baxayno sunnihii kawniga ah oo waan isguursanaynaa oo ilmihii waa la dhalayaa oo wixii oo dhan waa la qabanayaa oo sunnihii ilaahay abuuray qof ka bixi kara ma jiro laakiin mas-uuliyaddii waqifuuhum innahum mas-uuliintii xaggay naga marta oo jazaaka allah khayr walaashaygu way mahadsan tahay dadka wax indhaindheeya ama wax qora indhargaratadu waxay isku raacsan yihiin hijrada aan soo galnay exilka la soo galay khasaaraha ugu badan wuxuu gaaray waa qoysaska taa waa la isku raacsan exilku ama hijradu sideeda dollar beeleedaho way xaruun badan tahay marka safarka aan soo galay dhulkan aan ku degnay khasaaraha ugu badan safarka wuxuu ku dhacay waa qoysaskii labadii qof ee walaalaha isqabay reerkii wadamooda taciyaalkii ay dayacmaan walaalahay reer Djibouti aniga waxaan idinku leeyahay iniga diaspora anaga waxaan noo fiilan lahayd anaga markaan leeyahay waddanka Djibouti ka hadlaya anaga markaan leeyahay yaan yeesan iga dhaxalkiya waddanka Djibouti baan ka hadlaya ya ma baqanayo ma baqanayo aba la xalay kana xalay ma diyaaro ah ma baqayo ma fadi absolutely ما بقى واحد دوني مساج كيغا انا دد مسكو دحال كما دوني اساسا ولا بس ما بقى يقوم جرو ان برله حد ديار بانو هاي سان دم ديار بانو سان كون ديار بانو بقى يقوم جرو اي waxaan leeyahay dadku warkaaga iska wada xarkaan macnaheedu waa sida saasaan leeyahay marka anaga wadankii waa leeyni baahayo
waddankiini baa inii baahan inigoo halkan diaspora reer Djibouti oo isku duuban oo urur leh ama laba leh ama saddex leh ama afar leh ama 10 urur leh oo urur kasta wax gaar oo ka shaqeeya mid baa caafimaad ka shaqeeya mid baa tacliinta ka shaqeeya mid baa dumar ka shaqeeya mid baa ubadka ka shaqeeya reer Djibouti oo 10 urur loo urur kasta wuxuu ka shaqeeyo oo danta Djibouti ka shaqeynaya سيسقسيف أنا ودك يبها يا وين وطبعا كأمر حتى يسنن لنا نقولي يبين لنا نقولي وحده أنا إسكان نقول وطبعا أمر راك شغال يا مستقبل كودك أنا رجوتي هذا ساسي جرتوه رأيوا إنه مده يعني أنا دمر كيو يرجعوا بيونا كسنا لسما ديدين مركا هذا وحنون الله هاي سيدي واجي ورا ونوله لو كان جوتي لو كي واجي ورا ما إنه سيدي واجي ورا دنوشي Vous vivez dans le cœur de la civilisation, au cœur de la civilisation. والله دري بير ميجا بد أدون كدوم كي لقى جد ولا جوتي أدون كمان كي لقى بصدق مسكح دي أدون كلبو خمسين أدون كي لقى قريبا جوتي لك إنه أنا وحنا الرئيسي واجي ولا نون الله إنه والك جون مركا إني قط طبعا أورورا أما عشان أورورا أورور كسيبه وحجارة وكشقينا يو أو ودل كي تاجر أو ودل كي وحقبتها أيها أنو جعلان لهم ودل كي نساس جعلان له أدون كي لو واحد يري دياسبوراغا أيها أدون كدستا هذا إسرائيل دياسبوراغا لا حكوتها إسرائيل أنت جوها جوت وحماها لكن ودل كي إسرائيل كل شيء هي دياسبوراغا كل شيء أنت دي بدل جوت كل شيء أورك كليا قرنا لا إلى هذا محان كل هذا الأيباك أورك كليا أيباك كجرا مريكانكا أيها قرنا هنا أيباك بعد دورتها أوباما أيباك بعد دورته مدحوينها سoo socona aypac ba dooranaysa Israa'iil waxay ku jirtaa aypac ururka Yahuudda ka jira maxaan ku raaa Mareykanka wax la qariyo ma waa iska yaqaan waa caadi tacliinta haystaan maalka haystaan gab dumarka haystaan ururada adduunka ka jiro dhan ba haystaan Israa'iil iyaga jirsiiyay marka inaga diaspora hadda dad saysitiin oo urur halo wadankii ku aamiyay gabadha reer Djibouti waa la horumarin lahaa إما ودنكي وحيابا كل من هويني هي علمه أما علمه مع الهودنتو أما هوينا بسكر هودمتو توادت العسل أورور هوينكم كشقيا دي له سيدي قبل الله رومريا كشقيا ويفعلنا له مركانو حلا ريرو هون الدنيا أورور سقي بك قال لهين أنا جا واحد دي شقيا واحد سكودة يعني ولا لك جوجنا ولا احتراما سكودة ودنكي ما أنت محل لقى قبل كرا أنا واحد لقى قبل كرا ويمو قتال لكن ده أنا يمو قتال وأنا وسبجكتيف لكن إنك سك واحد أكرت قارني يقول رحسين قارني يقول دي وسورجل مركانو مساج كي واحد سكويا جيا إن واحد إنه ذلك قال لي أنا كهذا أما إنه هذا دحية واحد كلام كان ذكر لها هذا كهذا واحد أكرت سبب بورته هردي وهو كرتين هذا كسمة سباسة كجبر أوبجكتيف كي يقولوا تمام هانيا يا ولا يحري كما كشكين كرا وعما كشكين كرا كما مري كرا سي بس الامبورتانس waxa weeyaan wixii wax naga wada dhigayna wadana ka wada hadal wallahu a'lam dalkeeni Djibouti sidaan u gargaari karaa sida ay ka sheegay loo gargaari karaa sida hadaan sheegay adduunka ururada wax qabsada marka diaspora hadaad urur samaysatiin waliba kala duwan oo doomeena kala duwan ka shaqeeya ودنكيني وحبان ترينا ودنكا وحترينا حزبي ما هي ودنكا إن ودنكيني وحتره سيسال إسانسيان الله أعلم والد كيو دليل سيدي اسكو فهمي كران هو بروبليم كا وأنا هذا الشيء إني إكزيل كا دواتي دوغونا كدا عليه وحي هيستا قويسكي لما يوقف إسقبتي عيال كوغي لما يوقف إسقبتي وحي نقونيان مال وبدكينا مال بين نقونيان هذه لما يوقف وحي قرنيان ودد إجوكي هيهينو oo cilmi uu horeeyay wadkoodu waa la qabsan karaan barbaarintoodina way ka qayb gali karaan laakiin labadii qof ayaga hadayna marka horeba nasiib u lahayn inay wax barteen labadii qof waxay ka dhigantay iyaga wadkii way kala go'ayaan generationka hore way sii wada joogayaan laakiin generationka labaad iyo saddexaad iyo afraad way kala go'ayaan waa wixii ku dhacay ummad kastoo la gumaysto ama ummad kastoo dhaqan aan lahayn sanka laga galiyo waa wixii ku dhacay albeq memi qui tue l'Algérien, j'ai perdu à la fois ma mère et sa langue. Marco Francisco Qabsadi. Isla markaliya waayo hooyaday iyo afkaygiba. Marka dhibaato halkan u badbaa waayo isla markaliya hooyaday iyo afkaygiba waayi way jirtaa. Waa mashaakilkana haysta.
laba qof oo waaweyn baa halkan oo wada ku dhaldhaleen laysma fahmay sheekha islaamka aad ka baranayso horta iska eeg ninkaad kamiisa ka tolanaysa waxa la yidhi ninkaad kabaaga ka tolanaysa kamiisa laga samayn Soomaali saasaa la yidhaa ninkaad kabaaga ka tolanaysa kamiisa eeg marka sheekha diinta ka baranaysa horta iska eeg muxuu yahay sheekhaasi ila sheekhadu badan yihiin maanta Soomaa aad baa loo badan yahay marka sheekha iska eeg diinta islaamku waxa la yidhi wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata bilahi on a fait de vous une communauté de juste milieu ilaahay wuxuu yidhi waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaad jalla wa ala ummad dhexdhexaad waxay rumaysantahay waa dhexdhexaad dhaqankeedu waa dhexdhexaad cibaadada waa dhexdhexaad shantaas salaadood baa laga rabaa sunnaha ku biiri habeenka saa tukanin dad kiriyeedo ama habeenkaad kartay iska tuko hadda habeenka saa tukan karto in yar kugu filan tuko diinta guriga isku qabanahay isku celiiriin nolosha dibiyeega ilaahay wuxuu waxaan ka dhignay dhexdhexaad ilaahay wuxuu jecel yahay nolosha wixii dhexdhexaad cuntada dhexdhexaad cun socodkaaga dhexdhexaad ka dhig hurdadaada dhexdhexaad ka dhig hadalkaaga markaad hadlayso dhexdhexaad ka dhig noloshaadoo dhan dhexdhexaad ka dhig al-iqtisaadu fi lxayaa nolol dhexdhexaada wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ilaahay wuxuu yidhi waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaada bartilmaameedka adduunkana waan idin dejino muslimiin kacbada waxaan idhi waxay ku taallaa centre du monde halbowlihi adduunkay ku taallaa markaa sheekhaa diinta ka baranaysa hadduu yahay sheekhaa dhexdhexaadkaa diinta ka baro laakiin hadduu yahay sheekh dhinac u socdaa ama dhinaca bidix ama dhinaca midig labada dhinac buu u socdaa iska ilaali diintaa ka barani hadduu labada dhinac u socdo diintaa ka barani dee qoladaa maanta waxaa qarxinaysa sow sheekhyama leh diin bay sheeganayaan soo maha haddii sheekhaagii aakhirka uu isqarxi kulaa ka waran soo mushkilo maha de wayba dhacdo wayba jirtaaye markaa mid xagga garabka midig u socdaa iyo ku xagga bidix u socdaa kaa waxa ka baranin waxaad wax ka barataa wadaad diintiisu ah dhexdhexaad tahay ka baro macnuhu ma aha wadaadkaasi xaaraantuu baneeyaayo xalaal ka dhigaa maaha macnaheedu sidaa maaha waajibkiibuu ayaad ka baranaysaa wixii waajibi waa waajib wixii sunnaana wixii aad karta kala kaalay buu ku leeyahay diintiina aayar buu kugu dhiibaa sida kiniinku xabad kuu liqsiinayaa wadaadkaa wax ka baro wadaad xabad kuu liqsiiye ka baro wadaad kitaabkii soddonaad markaaba kuu fura adoon kii koowaad baaran wadaadkaa waxa ka baranin wadaad kitaabkii koowaad kii labaad kii saddexaad tallaabo jaranjarrada maqsh jaranjarrada xabada kuu fogshiiyo wadaadkaa diinta ka bara insha allah wallahu aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير برخد مقعي هو محمد أنا حاسد عبد الله الشيخ وحنا أرضيني وحكبرة القرآن كي تفسيرك عبد الرحمن برخد سؤال شيدو وحوي شيخ وحن ربينا كويديو دونك قربها وحن كسوك الليكو أرقني وحن إرادة الفرارق الدين وحيابه ورانا نقل جديد تبينو وحن كنا كرتوين مركز سلينو وغاكرنا كنا صحلا طريقة صحلا أنا هايسنو سين كنا وغان كرنا من صحلا هي تكرسين تصبر بشيخ إيمان خوان سؤال ولكن محمد وحنا وحنا دوا مذاهب ومذاهبته مشكلة ما هي واسك عادي إنه قدامنا بكاش شافعية نتناسوا معين مذهب هو إيكول مركا أفر إيكول وهو يبادر 4 مذاهب في الإسلام مركا مذاهبته وأحكامته فقه قوية وفروع ذا أحكامته لإرادة فروع ذا وحان أصل كهين لفدبر وحان هين فرعية أي مذاهبته سكاذا مركا مذاهبته مشكلة معها الدون كافر تسأل لك هايستا جيس كافر كنت بدنا شافعية لك هايستا إمام شافعي رحمة الله عليه مركا سؤال شبه محمد إنه مذاهبته وجده ومرنيه وجده وحركات لنا حركات بوجده كان تبليغ وخروجه كان سلفية يا كان إخوانا محمد يساوي جده المرنيه مذاهبته عادي مذاهبته مشكلة معها الدون ما أنت أنجوب نود قرضة عن شيء مالك يسوي كجران خروج كوجر هذا ودن كان جبوتي وكجري سلفيات وجبوتي وكجرتها ده إخوان المسلمين جبوتي وكجرا الدون كمال كسبوا وكجرا بس وامحي ودلال بشرية خروج كنا ودلال ودد علمون بس كنت وردين تلا سينوفا في النبى ليريو مسلمين تي دين تولا سينو قارسينا ده واحد كوفي عن تي مسلمين تينا دين تولا كو قارسينو
سدا هو سيدي مسلمين تا إيمان كوجي بابو إيمان كوجي ضعيفين مركا إيمان كوجي أنا سوء علنا جديدين وسينا جديدين مساج كان جينو سير مساج كوجينا صدق عشاء الله بحو تدوان الله بحو طبعا عشاء الله بحو بله الله بحو أفر بله الله بحو ومساج كان الله فرديو إيمان كان الله قات كيو دد مسلمين وعلماء دداليو ددال كاسة كانان يهدونك وكجرتها جبوتي وكجرتها دد بدنا مسلمين ورو جبوتي خروج كابحو كشقيو dad badanna way diinta way ku soo geliyeen qaarna way ku islaamiyeen alxamdulilah bay waxaa jira qolada salafiinta as-salaf waxaa la yidhaha dadkii fiicnaa diinta islaamka taariikh ahaan nebi moxamed iyo wixii ka dambeeyey asxaabtii nebi moxamed wixii ka dambeeyey as-salaf as-saalix dadkii wan wanaagsanaa salaf waa dadkii tegey weeye diinta inoogu horreeyey ee diinta ku fiicnaa weeyaan as-salaf baa la yidhaha marka waxay yidhaha annagu waxaana as-salafiya dadkii inagu horreeyey diinta ku fiicnaa dariiqii ay ku fiicnaadeen baan maraynaa bay iyay leeyihin oo waa maxay kitaabkii ilaahay baan qaadanaynaa iyo xadiiskii nebiga sala allahu calayh wasalam wax kale arki kari mayno marka wixii kaloo dhan waa bidco kani waa bidco kani waa bidco mulqacadeen wax lagu cunay waa bidco shookadeen wax lagu cunay waa bidco gaari in la kaxaystaa waa bidco qaarkood halkaasay la maraysaa iyaga laftooda way sii kala durugsan yihin marka fikradda asaasku waxa weeyaan dadkii hore ee diinta noogu horreeyay dariiqii ay mareen baan maraynaa kitaabkii ilaahay iyo sunnaha nebigaan ku ekaanaynaa sala allahu calayhi wasalam layskuma hayo taa kitaabkii sunnaha laakiin waxaa ku jira intooda badan adayg baa ku jira waxa guluwi la yidhaha adayg baa ku jira adayg sunnihii waa maxay waa dharkoo la gaabiyo surwaalkoo la gaabiyo macawiistoo la gaabiyo khamiiskoo la gaabiyo sunnihii waa maxay waa garhkoona la xiirin oo la taabo shiribahoo la xeero shanabahoo la xeero oo qofkii surwaalka dheereeya maxaa dhacaya uu gaaloobay kii garhka xeera uu gaaloobay waa la adkeynaya marka guluwi baa ku jira adayg xoog laa ku jira kitaabkii ilaahay ha la qaato sunnihii nebiga ha la qaato waa sax oo siday tahayba laakiin inta badan waxaa ku jira adayg baa ku jira adayg oo dadka qaar ay gaaleynayaan baa ku jira adayg xoogaa ku jira waxyaabaha qaar oo aan la adkaynin oo la yidhi waa sunne ayay gaadhsiinayaan ilaa maxaan ku rahdaa gaalnimo marka adayg xoog la ku jira dadka qaar waa iska dhexdhexaad laakiin waxaad moodaa dhalinyarta qaar adayg xoog la ku jira de waxaan idhi caalamka waxaa jira ikhwaan muslimiin nimankaa masar dee madaxweynaha doortay la afgembiyey een iska wada ognahayna adduunka meel kastay jiraan iyaguna islaamkay faafiyaan war islaamku waa diin dhan way dhammaystirantay islaamku noloshuu ka hadlay islaamku wuxuu ka hadlay guurka islaamku wuxuu ka hadlay lacagta islaamku wuxuu ka hadlay spoorka islaamku wuxuu ka hadlay cibaadadii iyo salaadii iyo xashkiiyo islaamku wuxuu ka hadlay maxaan ku rahdaayey islaamku cuntaduu ka hadlay islaamku wacabkuu ka hadlay islaamku safarku islaamku noloshoo dhan buu ka hadlay marka noloshoo dhan dadka islaamnimada aan ugala hadalno diin dhammaystirna caalamkaan gaarsiino islaamku siyaasaduu ka hadlay maamulka islaamku ka hadloo nebi moxamed dowladdii madiine laga dhisay isagaa madaxweyne ka aha sala allahu calay wasalam dee dowlad baa ka jirta madiine ayaa ka madaxweynaha ma malag baa madaxweyne ka aha mise dameer baa madaxweyne ka aha dee dowladdii madiine nebi maxamed baa madaxweyne ka aha sala allahu alay wasalam war maadaama dowladdii madiine ka jirtay nebi maxamed madaxweyne ka ahaa dee siyaasadda islaamnimada way ku jirtaa oo siyaasaddu waa maxay waa la gestion de la cité waa idaaratu albaled waa waddankoo la maareeyo lacagtiisi iyo caafimaadkiisi iyo dhaqaalihiisi iyo wixii la halmaada markaa dadkaan gaadhsiino islaamku sidii u soo degay diinta nolosha oo dhan bay ka hadashee islaamku nolosha oo dhan buu ka hadlayaa islaamka oo dhan dadka aan gaadhsiino ikhwaan muslimiin baa fikraddaa qabo dee adduunka meel kasta way ka jiraan sidaa khuruujkiiba uga jiro salafiintuna ay uga jiraan dee dadka qaarna waa dad garaad badan khuruuj garaad badan baa jira salafiin garaad badan baa jira ikhwaan garaad badan baa jira way wada nool yihiin way wada shaqeeyaan walaala yihiin dadka qaarna way garaad gaaban yihiin oo khuruuj garaad gaaban baa jira ikhwaan muslimiin garaad gaaban baa jira salafi garaad gaaban baa jira oo waa la isdooxaya waa la isdilaa labaduba way jira markaa sida ugu fiican waa maxay waa la isbuuxiyaa una kana islaam buu wadaa kana islaam buu wadaa kana islaam buu wadaa waa la isbuuxiyaa in la walaaloobo sidaa guud iyo islaamnimada laga wada shaqeeyo ku fiican tahay maxamedow madaahibtuna waa gooni kuwa kalena waa gooni wallahu aclam walaalaha qaar aad bay iiga raali noqon doonaan saacaddiiba ii taagan gadaalna waa sinyaal baa laiga siiyey marka waxaan ku soo koobay hal su-aal oo qoraal ah iyo hal su-aal oo dhinaca gabdhaha ah gabdhaha ka hormarinaya السلام عليكم بسم الله ولا يمغلي يا ولد بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
horta kamarada wax kale uma diidin waa cudur daaranayaa waan ka dhargay kamarado haddaanan doonayna haddana inaan dib ugu noqdo waa Faadumo sheekh waan ku salaamayaa soo dhawow qalbi furan iyo walaalnimo ku soo dhawow dadkaagii oo wada jecel ku soo dhawow waxaan ku faraxsanahay aragtidaada aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku aragno adigoo caafimaad qaba xanuunka yaraa xoogaana ilaahay subxaana watacaala waxaan u malaynaya inuu kaga gargaaro ilaahay caafimaad badan ha ku siiyo alxamdulillah jazakallah khayr barakallah fiik aniga kulley waa saa sheegtay ilaa caruurnimadii bayna soo garab joognay ilaahay baa mahad iskale inagoo maaragtay waa weyna imika inaan isgarab joogno walaashayna waad qabtaa walaashay sacaadana salaam baan u dirayaa sacaada cabdi kuleysi jirtay ma sacaada walaashay heesta waxaan noo dheerayd waan isla seexan jirnay waa walaashay wey walaal haddii la yidhaha yani waxaa la yidhaha walaal waxaa la yidhaha qofka aad sirta ku qarsato wax u sheegto waxna maaragtay waxay jirta dadka wada dhashay inaanay waxba isku sheegi karin base anagu iskugu sheegnay marka horta soo dhawow sheekh xaafadeennii kartoon na waxaad aan maaragtay waxaan arkayaa inay lug weyn ka gooday wixii badnaa ee aad wadeen tarbiyadii fiicnayd caruurtii anigu markaad jeelka ku jirteen waan imid wallaahi ilmaa iga socotay yacni xaafadeennii markaan u fiirsado markaas waxa weeye dadku siyaasad bay ka hadlayaan siyaasad waxa weeye aniga horta dadka intay walaha yari ay ku yaraayeen baa macaarad noqday macaaradnimadii imika waxaad moodaa inaanan meel macaarad aanan ka muuqan sababta aan uga muuqan waayo waxa weeye dadka in yar ayaa ka fikiraysa ummadda dadka inta badanina mansab bay ka fikiraysaa mar horaan ogaanay oo dalka iyo wanaagiisa anagoo u macaarad noqonay iyo cadaalad darro ka cararnay baa waxaan aragnay in lana dul maray dad badan oo moodayna inay aqliga anaga iyo waxaan ugu jira ku jira marka waxa weeye waa ilaahay umaan u barinaa insha allah in ilaahay cadaalad waddankeena uu keeno muhiimadda ugu weynina waa cadaalad weyn cadaalad hadday timaado dadku waa wada noolaanaya ilaa ka yar ilaa ka weyn iyada taabaan kaga gudbaya midda labaad waxa weeye sheekh aniga waad ogtahay shaqadaydii waan joojiyey sababta aan u joojiyeyna waa ilaahay dartii yacni bacda markaan wax fahmay inaan ka tago marka waxaa dhacday qof kasta wuxuu siiyey ilaahay haybad buu siiyey qof baa hadalka ku fiican qof baa hees ku fiican qof baa qoraal ku fiican qof walbaba waxbuu ilaahay maaragtay hadiidu siiyey oo uu maaragtay leeyahay hibo gaar ah waxaa dhacday iminka waxaan isku dayay inaan madrasad ayaan habla yaryar intii aan xoogaa qur-aanka ka bartay dib aan ugu dhignaa aniguna aan macalimadka ah waxaa dhacday caroosyadii gabdhaha yaryar inay gabdhi yaraa markay xijaabteen ee ilaahay ka baqeen ee wax loo sheegay inuu caroosyadii ay noqotay geeri camal sidii geeridii oo kale dee la aaminsan yahay la wada fadhiyo waxaa dhacday markaa habli yaraa ay weydiisteen habar yar adigaa fahmaya waxaan wax noo samee aanan macaasi ku jirin oo caroosyadaydii anaguna macnaha waxaan u arkay anigu wixii dacwaan u arkay nooc mina dacwo runtii wayna noqotay laakiin hadda firqa laga hadlayo oo miidhan ayaa waddankan ku badan firaqyadan badan dad aad moodi diinta in iyagu leeyihiin oo dagaal kugu soo qaadayaba macnihii marka waxaan samaynay anigu waxaan sameeyey durbaan weliba ki ay yidhaahdeen waa la ogol yahay sida aan culimmada iyo dadka ka maqlo oo dabada furan baa waxaan qabanay waan rikoor garaynay durbaan khaliya oon waxba ku jirin waxaan sameeyay marka caroosyada kamarad ma ogolin ma ogolo because waxa wixii mar haddii lagaa duubo dabadda u baxayaan raggana ma ogolin waxaan sameynaa markaa in hablihii yaraa aan u qaadno heesihii dhaqanka in wax diin ku saabsan wax maaragtay ka hadlaya yacni maaragtay munaasabad markaa la joogay carooska aan u sameyno tii baa maaragtay marka dad badan ay maaragtay weliba qolooyin badan oo aan maaragtay aad bay iskugu dhaweyn baa macallimiinteedii kamid ah aad moodaa in maaragtay la waa يعني حلال إلهي بكرة سمية وكرة شيء آد وير بدن باكدعة ذاتك قارناها بكويهين انت بدن ماركتي وتقولي
dee qofku hadduu doonayo jawaab inuu ka jawaabay anaa jawaab u ah because anigu wax weeyaan wax ka weyn oo music iyo wax walba oo ka lacag badan baan aan ka nimi marka waxaan jeclaa bal faahfaahin arrintaas يعني waxay diintu ka qabto horena waan weydiiyay Cabdiraxmaan waan weydiiyay gaar baan u weydiiyay markaan culimadayda anagu waan weydiinay waxa kan waana tusnay ma ku kalsoona dadkii waxaan rabay inaan marka macnayso waa wax shakhsiyan aniga gaari ah dadkuna ay ka faa'iideystaan oo waxa ay ka qabto diintu maaragtay in arooska laga ciyaaro oo loo ciyaaro waxa ay diintu ka qabtay inaad sheegto barakallahu lak جزاك الله خير فاطمة ما سنتهي فاطمة فرح الذي لا خرسيه كان ما نقول فاطمة وانت من محمود ولا صعب فاطمة ما سنتهي جزاك الله خير محمود ما تيجي سؤال شا علم العاب جرتو الجهل وين هاي سيدي دبا دين تنا الجهل بدت كنا كسيها يوم وذوقنا هاي فاطمة إذا شكتيو الدوم ذكري سنو وقت أن لفرحة أن لهين أرت إلهي نقوم أقول إلهي نقوم تركني الدون مقديونا أو لا بقص لين ولا فرحين عن سعد نتمين مدح عن نولين الدون مدو إلهي نقوم أقول إلهي نسائل ما أقولين بقى قف كونوا فرحي بوايو والدون كسوافك بورا إنه خدم ما دو كتبو إلهي سائل ما أقول إلهي نقوم أقول فرح عراء قصل مرغو وهين بشر بعض هاي وإلهي ما أنت من نقوم أقول marka in la farxo oo sacabka la isku tumo oo madaxa la ruxo waa watar waa waxay nagu dhex jiro Ilaahay baa nagu abuuray qofka isagu waxa diidanayay laga dhaadhicin kari maayo waa wada diintu ay ku qalloocatay cilmi fara badan lahayn waa dhibaato weyn marka Faadimo wixii musiiga ee taqaanay waa soo dhaaftay iska daa laakiin durbaanka iyo dafkii wixii musiiga ka hooseeya dafuuna la garaaco oo dhan culimadu way banaanayeen waa xalaal إلهي ما قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا عراس دي لجوجو حلو بهاي هاي مش حرج يقصل يماويل يكون مكتب لو بهاي عراس دي لجوجو غيري هدي لجوجو أنا وحكي لو بهاي شقاء دي لجوجو أنا وحكي لو بهاي عبادة دي لجوجو وحكي لو بهاي قفك مسلم كي كل ماشي وجوجو وحي عن حارانة هين وحكوها برا لو بهاي معي كده كانت عراس الأسكين ما تفوق هلا بورها لك اللي تقول وبدنبي بتابع دنبي بقى إلهي تاسو بين أبوك بسمع إذا أفكر كربور إلى كنتو مركا وحي أنا هين نبي محمد حلي كيسي ولا قصة شيء صلى الله عليه وسلم مساج كيسي بدينا إن من حبشيه كل عياريا إنه نبي قد هوني عاشنا يعني هل كان نبي قد قصتي أي لا داوني سي ومساج كي نبي عيار رقمات ده كل عياريا عايشنا ويداوني رضي الله عنه نبي قرر المدينة هاسا يجعلي هنا وهاسا ولي صلى الله عليه وسلم عراس بها وهاسا غير المدينة هاسا يجعلي برسولك صلى الله عليه وسلم وحي مركان يزيق هنا كوسيا وولي بهذا البهذا كوكا معايا هاي لحن كوكا معايا هاي سوحي لو مروا قيا يد البال الله متويون وبلو بهاي هاي با بر ما انت وحب الله اركبها حديث كاين حديث واحد ذكرتها سيدو ويني تابتي waxaa dhici kar lahayd hees kaliya oo Soomaaliya oo erey macaano qof aad u qurux badan inuu qaado dif loogu tumo inta aad ka helaydeen baa ka badan inta xadiiskaaga caawad ka heshan taa waa isku raacsan taa waa ogne anu hadda waan dagaalamay waan jacjacleynay wadaadka dagaalamayaan ahay laakiin qof cun macaan haduu leeyahay ilaa erey macaano af Soomaaliya madaxa wada ruuxaana ilmaha iska biilnaa Soomaa marka waa loo baahay waa wax nolosha kamid ah فاضل الميزيكا كان هو صدادع وحال يحيل تمام الميزيكا هاي وحلال وذاتك سنة كهر ما يخاطب بالله مخاطبي مركا وذاتك هذا سن وذاتك هذا سن خاطب بالله مخاطبي نلشوا كاجوجي وذاتك نوع عاصي نلشوا كاجوجي نلشات كيستاجي ذاتك قارب نلشوا كيجوكسي نلشوا كيستاجي ومشكله إلى أن نحن أبورينا نولانا لكن نكون نولانا إسلام كنحيس إلهي نوما أبورينا نعرونا ما نمرقونه لا إلهي وحنا أبورينا نورانو لكن نعيش في ظل الإسلام absolument nous devons absolument vivre dans l'ombre sous l'ombre de l'islam حركة إسلام كمان نكون نورانو مركا فرحات بانو باهناي قصر بانو باهناي سعب بانو باهناي دفكاس بانو باهناي هاس بانو باهناي أنا ساكو ده واحد يسوي يا نشيد مهرجان لو سوي دبي يا oo Arabi iyo Mareykan iyo rag ugu cad wanaagsan isku yimaadeen oo deemin mid ka dhacay ayaa daawanaya live waan ku xishadeen kama daalo dawaa heeso
dif baa la tumayaa waa heesaad wanaagsan oo nabigi ilaahay baa lagu ammaanayaa sala allahu calay wasalam iyagoo af soomaaliya iyagoo faransiisa iyagoo ingiriisa iyagoo carabiya intaba haddaan helo waa qayb nolosha ka mid a ilaahayna dadka uu qaybiyey anigu hadda waan hadlayaa hadda hadal baan ku bogsanayaa qofka aan hadli karayna isagu hees ku bogsanaya maxaa la yeelayaa oo dee waa kitaabkii meel loo leena soo maa dee kitaabku meel u siiyey marka qofka aan hadli karayn heesi karayn laakiin waxa qori karaya qalin kitaabkuu siiyo qalinkii baa loo baneeyey ka isagu qalin maaha waxbuu taswiiri karaa waxbuu taswiir buu wax ku cabiraa ilaa intaasoo noocba wax loo cabiraa taswiir buu wax ku cabiraa waxbuu taswiirayaa taswiirta waa message dee waa loo baneeyey taswiirta markay shuruud leedahay marka faaduma mashruucaas uu fiican yahay annaga waa mashruucaaga waa la jiraa culamada soomaalida iyo muslimiintuna way la jiraan afar qof baa ku gudaynaya afartaana dhegaysanayne hore uga soco mashruucaaga wado wallahu aclam جزاه الله خيرا شيخ عبد الرحمن بركة قول الله خير سيو وقتي أو عريري وحاكو قصبنا هاي على مدى حق الدبكة تاجن سؤالها قاركود وانك قاعد وإيران وأخي شيخة والآن الصوماليات لو حصول قري شيخ النور الصومالي هدان هاي البالدين جعل هاي علوم دينا غير جيبوتي إلهي هاي نحفظيو عمل كيننا الله توسيو امين جزاك الله خير مولانا سومالي لدن انا وهذا الرئيس سومالي انتي ولي بحمر اللي ما جعلنا الرحمر بدنا برتين وقفتوا يا شباب وقفت كوالغا شيخ كلمتها قاركود شيخ ومركان الى هذا يقو قبصدا كلمتها maxay ahayd sheekh xagee ka timid waan ducaysanayna insha Allah taala qacmaha xagga dambe ka taagan iyo raali noqda aad iyo raali noqda waqtigii la qabtay waan dhaafnay 15 daqiiqo meesha intaan la nagu qabqabla naga siinin intii salaantii iyo intaan iswareysanayni iyo kulay dad badan oo magaalooyin badan ka kala yimideen way jiraan waqtigu uu sii dheeraan doona aad baan idinka mahadnaqayaa wax اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم تولى امرنا اللهم تولى امرنا اللهم تولى امرنا اللهم فك اسرنا اللهم فك اسرنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بالحق سبحان ربك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.